وانقصلي waxaan doonayaa wax yaro inaan dib u soo celiyo taariikhdii muqdisho inaad iga barateen hasta la vittoria sempre qaqayash meel baad joogtiin jiilka saddexaad waan islaamaya hasta la vittoria sempre qaqayash taariikhdu waa in la bartaa soo dhawaada pontiyaan ka hadlayaa muhiima dekeda muqdisho yaa xukumi jiray yaa wax ka soo dejin jiray yaa ka ganacsan jiray yaa xamaali ka ahaa yaa xaaqi jiray waxa deked la dhaho waxay leedahay administration ugu horey uu ku jiro shipping line ay ku jiraan shirkado shipping line ay ku jiraan wax walba marka dadka maanta hadlaya le dekeda berberaan xukunaa aan rabaa inaan wax yar ka hadlo iyo dowladnimo sheeganay waxaa la yidhi ninaan talin jirin hadduu taliyo talow qaldaa dekeda muqdisho un baan ka hadlaya dekeda muqdisho waxay caan ku ahayd waxaa laga soo dejin jiray baasto waxaa laga soo dejin jiray sibir waxaa laga soo dejin jiray galeey waxaa laga dhoofin jiray xoolo waxyaalo badan dekedu waxay caan ku tahay dekedu waxaa jiro administrative agaasimo dekedaa jiro iyo waxaa jiro oo very important ah shaqaalaha dekeda ay ugu muhiimsan yihiin xamaaliyiinta markii awal terminal ma jirin wiish ma jirin dhabarkaa lagu qaadi jiray shamiintada iyo burka iyo baastada iyo wax walba waxaa kaloo dekeda weheliya soomaaliya waxay macruuf ku tahay gaari la yidhaaho dibille oo asna soo guro alaabada dibilla laha waa gaari ruusha marka kuwii transportka lahaa kuwii badeecadda lahaa kuwii xamaaliga ka ahaa kuwii directorka ka ahaa aan rabaa inaan ka sheekeeyo marka xasan cali kheyr waxbaa ka qaldan iyo xasan sheekh maxamuud iyo dadkan hadda hawiyaha hadlaya dowladnimo sheeganay waxyaalaha ka qaldan soomaaliya tan iyo waagii talyaaniga muqdisho port administrative waxaa ka ahaan jiray korob nin waqooyi ahayn jiray nin reer waqooyi ah ayaa ahaan jiray agaasimo guud ama maareeyaha dekeda ama wasiirka badda iyo cirka nin reer waqooyi ahaan jiray waa meel certificate ah oo cilmi u baahan waxaan soo gaaraynaa waagii siyaad bare waagii hore naga daaya waagii doonshiraaci waxa ka baxa waagii imbrangilio dekeda muqdisho la weynayaan ka hadlayna dekeda muqdisho soomaaliya waxay lahayd insurance hal waxay lahayd shipping line hal somali shipping line la dhaho shipping lineka waxay haysteen inay yidhaahaan maxamuud aadan dhari waa nin habar yoonis oo muuse ismaaciil oo wax bartay nin kale weligii ma qabsan hawiye ma qabsan shipping line ma haysan waxaa kaloo jiray maareeyaha dekeda wuxuu ahaa maxamed hiirad nin habar yoonis oo bar dhulbaanta ah u ahaa oo lagu soo qaxayba wuxuu ahaa maareeyaha dekeda weligii asla nin wax barto oo alinaya mashiin iyo kulli la shaqayn jiray waxaa kaloo jiray transporter ay ku faanaan abgaalka ilaa hadda ay dhagax saartaan xitaa burburay oo gaari kale lahayn baabuurta la dhaho dibillaha waxaa soo dejin jiray nin muuse ismaaciil oo berigeeye ay yidhaahaan dekedaa waxay u shaqayn jirtay oo wax ka soo dejin jiray jirde xuseen nin reer axmed ah oo la garanayo oo daarta ugu weyn leh savoy center leh ayaa wax soo dejin jiray ninka kale wuxuu ahaa nin cali saleymaan oo unlay ah sokor iyo bur iyo saliid iyo wax walba keeni jiray waxaa kaloo dekeda aada u isticmaali jiray wax kasoo dejin jiray nin iikar maye macalin la dhaho oo buuwa dhalay oo baastada soomaaliya laga cuno basta gaalla la oran jiray waagaa diiq kusoo orinaa keeni jiray wax kasoo dejin jiray waxaa kaloo wax kasoo dejin jiray ninka la yidhaahaan algadiri oo asna keeni jiray baastada bariilada markii la horumaray waaya tijaarada ugu weyn ee soomaaliya waxaa haystay unlaaye jirde xuseen ayaa haystay marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego ninkan khayre awowihii muxuu ahaa ninkan kaliya xasan sheekh maxamuud awowihii muxuu ahaa hawiyaha muqdisho jooga awowayaashooda maxay ahayn waxay ahayn xamaaliyaasha dekeda ee isku dagaala markabka imaanayo ninka reer sheekh isxaaq ama ninka cali saleymaan soo dejinayo ama ninka reer xabarka soo dejinayo xamaali bay ahaayeen
waxay xamaali jireen shamintada waa taqaaniin shamintada way kugu daadanaysaa markaa dhabar ku qaad markaad dekada ku aragtid iyo dekada ka soo baxayaan waxay hayaan dad xamaaliyaal oo shamintada iyo markay ku daadato wasaqda ku daadato burd ku daado wuxuush ah oo laga baqo way ka tilmaamnayeen dadka magaalada waxaad ku arkaysaa hawiye dekada ka soo shaqatay oo soo baxayo oo baal u eg shaminto ku daadatay bur ku daadatay saliid ku daadatay xamaali ah inta kale waxaa u dheeraa hawiye dameer wado biyo shubay oo arkayno feerqaawna maxay soo gashnaa feerqaawna xamarweyne shingaani meel walba biyo shubay oo markuu yiraa caloosha laga haya islaanta ninba mu haysan waxay dhis banaankaas istaag banaanka ku xar banaanka ku kaadi banaanka ku xaaray banaanka ku kaadinay dhagax ku tirinay ani waa arkay oo kusoo qaangaaray hawiye wada feerqaawan oo shaar gashnaa maantu kii transportkii dekada xamar lahaa wuxuu ahaa berigeeye oo keeni jiray baabuurta dibilaha kii maareeyaha ahaa wuxuu ahaa hiiradoo nin reer shaqsxaqo habaryoonis ah oo bar dhurbaanta ah kii shippilaanka haastay wuxuu ahaa maxamed aadan dhari kii kale ku weliye wax soo dejiyey wuxuu ahaa unlaaya maanta marka waxaa lagu leeyahay ninkii xamaaliga awoowihii ahaa ee awoowihii koowaad awoowihii labaad awoowihii saddexaad iyo generation ba xamaali ahaa ee dameer waday biyo shubayey xoolaha qalay ayaa maanta ka hadlaya dekada berbera waa xamaaligii wuxuushka ahaa waa dameerkii iyo ibni aadankaba wada xamaali ahaayeen ayaa maanta raba inuu ka hadlo dekada berbera soo fiiriya taariikhda dekada xamar waxaa kasoo dejin jiray reer xamar waxaa kasoo dejin jiray ikar maye macalin oo buume dhalay oo baastada keeni jiray gaallo la dhahay diita ikar la dhahay wax kasoo dejin jiray unlaaye waxaa warshad kaliya xamar ku taallay warshada barafka labaa ku taallay mid talyaani oo boolole mid kale waxaa laanin ortablaha xaaji diirihii lahaan v a jita macruufku ah inta kale nuuryadaa lugaha loo marinayo afridoodkay kasoo gelayeen war dadkani ee maanta jooga ee xildhibaanada ah waa dameeraaley iyo xamaali dameeraaley iyo xamaaliyaa leh berbere annagaa leh marka waxaa la yidhi ninaan awoowihii talin oo faracii talin markuu taliyo dhibteeduu leeyahay marka ninka maanta dekada berbere ka hadlayo awoowihii koowaad iyo labaad iyo saddexaad xamaali bay ka ahaayeen kheyre awoowihii dekada berbere dekada muqdisho waa la garanaya xasan sheekh maxamuud awoowihii xamaali buu ahaa dekada muqdisho ka ahaa waxa hawiye xildhibaano sheeganaya waa xamaaliyiintii iyo qaar kaloo gaashaamo ah oo tambuluq sharmutooyin ku gaday waxa kale waxay ahaayeen dameeraaley biyo shubto ama kan ugu weynee macadcase sheeganayo hawiye ay sheeganayo waxaan ahay xasan sheekh maxamuud qodadii dee hilib loo ahaa say u dhown yihiin mursado waa la garanayaa xoolahay qali jireen caloosha iyo madaxa iyo mijaha la siin jiray suuqa xoolahay tubnaan jireen waxa kaliyoo shaqaysan jiray niman saacadoo bacadlaha ama reer bulaalayaasha wax soo dejin jiray iyagana dee soomaaliya waa isgaranaysaa xamaaligii foosha xumaa ee shamintada ku daadatay maanta garabaatiyaa loo xiray baarlamaanka u fadhiya wuxuu le berbere unukaa leh war soomaaliya waa la isgaranaya wallaahi xamaali ahay aadan cabdulle cusmaan suuqa xamarweyne oo taagnaa dambiilow gaalada madaxa ugu qaadi jiray xamaali oo ah dambiil u qaadi jiray islaanta khudaarta gadato dambiil u qaadi jiray waa ninka ugu weynay madaxweyne ugu horaya soomaliya naqdo hawiye xamaali buu ahaa waagii talyaani hawiye shaqadii waxay ahayd xamaali shaqadii waxay ahayd tuugnimo oo suufilameer oo duruucda gurto hawiye shaqadii waxay ahayd dameeraaley biyo shubo shaqada ceeb maaha muqsulaha qodo weligii talin awoowihii talin aabihii talin faracii talin waxay ku soo kaceen xoogaa yar uu gulwado ka dhigay siyaad bare dameerkiina xaarka daadinayay jidkana futada wuxuu uga xiray marka waxaani leeyahay dekada berbere waxaa u tashtay imprenditoriale dad weligood tujaar ah oo farac ka farac cali xashiish ilaa jirde xuseen
ilaa ninkana yiraan maxay oranayeen barigeeye ilaa ninkan kale yiraan maxamed rashiid oo la garanayo ilaa bis we were trader bis soo weeraysta bis bulxaaray ku taalle bis wuxuu ahaa east african middle east ayuu controlay tijaarada marka waxaan nahay dad u dhashay tujaar waxaan kaloo halka raacinaya waxay ogaadeen ka yiraan idoor ceeb maaha waa kelmad tijaaro artijanaale ah ogaadeenka way qaawanaayeen nimanka sacad muuse waxay samayn jireen bur bay keeni jireen iyo sareenaa la cuni jire waxay geen jireen ogadeenya ilaa hawdka waxay ku soo bedelin jireen geel idoorka meesha ka timi geelay kusoo bedelinayeen they were very smart raggan qaawanay arkeen waxay ku yidhaaheen burka markaan nii keeno maryaha cadcad ee jawaanada burka ku jira inoo soo celiya burkalaan ku keenaynaa aqliga ka wata waxaa loo soo celin jiray kiishka burka ku jiray kontonka kiilo ah aa la soo celin jiray berberaa la keeni jiray iyo zayla maryahaa la jeexeexayay waa la nadiifinayay maradan hidhihii dhaqanka soomaalida ee xerato reermihiga xirtaan ee baftada cad ee baatiga ah maryihii intii la tolo dib loo tolo ayaa haddana iyaga laga iibin jiray oo lacag laga soo qaadan jiray dharaa loo gelin jiray way qaawanaayeen ogaadeenka marka ii doori baan nahay dee raggii ii doori ahaa ee badeecad nigu doorsan jiray ni quudi jiray marya nii xiray adikoo cadcad iyo ralxamarkooba dad horeeya iska daa ayaa maanta ninkii xamaaliga wuxuu ku leeyay berberaan leh hasta la victoria sempre kakhayaasha xamaaliyaashaasay u fool xumaayeen daa'uud hermitaan abgaal qolada rabaa ha noqdo xamaaliya deked ka ahayeen shamiinto intay ku daadato asoo qabaysanoo muufa cunay aan arki jiray fool xun waxaan kaloo arki jiray rag badan oo hadda xildhibaanada ah oo dameero wado guriga biyo noogu shuba hasta la victoria sempre kakhayaasha mac salaama taariikhda barta dadkani weligood ma talin dadkani mentality xamaali waay mentality tuug waay isbaaro waay inuu wax dhaco waay hasta la victoria sempre waxay kaloo lahaayeen baraaka cabdooyi tumbuluq nimanka xildhibaanada ah gaashaamo wax la dhaho waxay ahaayeen securityga oo sharmuutooyinka ilaaliya markay mariinada iyo timaado sakraan timaado marka dad fataaliin ah oo xamaaliyiin ah oo weligood talin oo indigen ah oo bahal ah oo fool xun dameeraaleey ah ayaa maanta kule dekeda berberaan leenahay hasta la victoria sempre kakhash mac salaama